lacag waa qaadasho codkana waa in aniga laysiiyo slogan kale oo anigu aan wato ma jiro waxay rabaan inay adduunyadiina idin hilmaamsaan oo nasiibkiina idin gefiyaan inta dooratiin taas marka waxaan rabaa anigu inaanan idin gefina adduunyadiina nasiibkeeda aan idinla qaybsan mudanayaal iyo marwooyin dhowr jeer oo hore ayaan doortay oon iska hormariyey madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal aan isleeyahay kuwan ayaa daacad u ah keeni kara isbeddel iyo waxqabad ay u baahan yihiin shacbiga soomaaliyeed hase ahaatee uma dhicin sidii aan raba sidaas darteed marka waxay igu kalliftay inaan anigu soo joogso maxaa yeelay aniga inaan qaba kara waa ogaha laakiin dad waa ku daala dadki laakiin aniga haddaad i dooratiin waxaasaan qaba kara koob iyo 20 sano kadib maanta oo aan ka baxna ku-meelgaarnimadii oo aan u gudubna dawlad rasmiya waxaa igashay cabsi iyo welwel ah ama la waayaa madax daacad ah oo kari karta fursaddan ka faa'iiday karta oo keeni karta isbeddel lagu diirsado taasoo haddii ay dhici weydo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku keeni karta in laga quusto soomaaliya iyaduna ay iska quusato sidaa darteed marka waxaan ugu talagalay inayna soomaaliya iska quusano anaa samata bixi kara aan samata bixi maxaa yeelay kuwa aan samata bixi karin naftay nagu dhibeen mudanayaal iyo marwooyin madaxda aad maanta doorataan awood ahaan way ka duwan tahay madaxdii hogaaminaysa dawladdaha ku-meelgaarka oo aan lahayn awood sharci oo ay ku qaadato go'aamo masiiri ah sida wax ka beddelka xuduudaha dalka qaadashada deymo dhaqaale gelis heshiisyo caalamiya qaadashada hantidii kaydka u aheeda ummadda soomaaliyeed iyo wixii lamida ayay tanu samayn kartaa haddaad qaladiin marka waxaasoo dhammay dhumaa xaduudahay dhume dalkay gadee hantidii kaydka aheeday dhaceen waxaad ogtihiin 130 malyan inay dhaceen waxaan anigu marka samaynayaa waxaasoo dhanaan sidii loogu talagala uwadaa maxaa yeele waa fursad qaaliya haddaba aniga oo ah walaalayaal haddaba aniga oo ah hogaamiye daacada u leh dareen qaran iyo khibrad maamul oo ummadda soomaaliyeed u keeni kara mustaqbal wanaagsan waxaan isleeyahay waxaad noqon kartaa hogaamiyihii ka saari karay ummadda soomaaliyeed masiibada ku habsan sidaas darteed amba sidaa awgeed waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan maxaa yeelay kii ay u baahnaayeen ana mudanayaal iyo marwooyin anigu waxaan ahay mar labaad salaad cali jeelle waa idinkugu celaa muwaadin daacad ah oo la yaqaan waxqabadkiisa fikirkiisuna uu cad yahay
waxaan ahay wasiirku xigeenkii warfaafinta iyo hanuuninta bulshada Soomaaliyeed aniga ayaa soo naaleeyay wasaaradda warfaafinta oo hadda shaqeeyaysa anaa hawsha ka bilaabo waxaan ahay wasiirku xigeenkii gaashaandhigga ee ka badbaadiyay in hay'adaha dawliga ah ee maanta jira la baabi'iyo xilli ay adkeen in qof Soomaali ahi sheegto magaca dawladnimo ama yiraahdo dawladda ayaan u shaqeeyaa nin dhihi kara ma jirin markaan anigu badbaadaay waxaan u ololeeyay kadibna aan u codeeyay in aan dalka ay yimaadaan ciidamo ka socda African Union waa kuwa hadda maanta na ilaalinay kadib markii aan arkay in aan ciidamo beeleedyada iyo xagjirka jaanisiinayn in la dhiso ciidan qaran in la dhiso subaxnimay weerarayaan haddaan ciidanku ilaaliyo aan lahayn waxaas inta ka fikira ayaan already aan ciidamada keen kadibna waxaan garoonka caalamiga ku soo dhaweeyay Muqdisho cutubkii ugu horeeyay ee ciidamada AMISOM yaa ila sheega kara ilaahay idinku dhaariyo waxa dhan oo dadku ku faanayo waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa taala gu'digay ay dayru ku faanta dadkan dayr waayana gu'aana maxaa gu'aan roob badan mana faayo laakiin dayrtu waxay soo jiridkii hore nool ayay ku kor shaqeeyeen markaasay cawsku ayaw soo baxa marka aniga jiridkaygi way waxa la isticmaalaa mudanayaan iyo marwooyin anigu waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo wiligiis ka bixin dalka gudihiisa ku soo barbaaray dadka danyarta dhexdooda waxaan ogahay wax allaala waxaad idinku rabtiin shacbiga Soomaaliyeed oo danyarta wax noloshaan la qaybsada marka waxaan garaa waxa ay u baahan yihiin kuwan laakiin garamaayaan way iska socdaan mudanayaan iyo marwooyin waxaa dhici karta musharaxiinta walaalaheeda in qaarkood ay iga fiican yihiin xagga dhaqaalaha iyo abaabulka iyo baabuurta iyo suugaanta laakiin aniga slogankaygu wuxuu yahay lacag waa qaadasho codkana waa in aniga la isiiyo slogan kale oo anigu aan wato ma jiro waxaan rabaa marka inaan u soo dhaco barnaamijkayga waxqabad kor midka ugu horeeya waxaa waaye xasilinta amniga maxaa yeele ana aqoon u leh hirgelinta dastuurka federaalka waa meel maraa abti dadweynaha loo qaadaa muddo 3 sano waxaa waaye garsoor madax bannaan oo cadaalad ku dhisan oo musuqmaasuq aan lahayn waxaana dhisi doonaa maxkamad dastuuriya oo wixii la isku qabsada kala saar shan arrimaha bulshada waxaan soo celinayaa caafimaadka iyo fayadhowrka biyo wanaagsanna waa la cabaa arrimaha siyaasadda dib u heshiisiinta ayaan sii wadaa walaalaha Somalilandna waxaan ugu baaqaa midnimo waana ka mid dhalinayaa oo ana SN mahaajir number 7 xiriirka caalamiga wadamada diriska annagoo fahamsan adduunku inuu maanta yahay hal gobol lana kala leeyahay dana dhaqaale iyo mid siyaasadeed isla markaana la kala awoodroon yahay aniga Soomaaliya waxaan u sameeyaa saaxiibo istiraatiijig farayn dhisaan u sameeyaa
استراتيجي صاحبانو سمايا هذه المدينة تكسو هالنور علي هذه المدينة تبيه وأنا هالنور عليها معايا أنا حوض مدين مدن يعني مروي أنا هو حالدين كمدهاي وسيجد الجبهة وقدام بينتي واي مدن يعني مروي إذا رالي أو مدن قدامي أنا هو حالدين لا يمدي نيد وناك إيوه ربيتان أن دونايو إن أن بدباريوه داد كيغا إيا دال كيغا هوي سيدا كور أن كسو شيغا وحان كإمد أنو تاغناهي dareen iyo rabitaan dadka caadiga ka yimid Soomaaliya sidaa awgeed waxaan qaxootiga gudaha ku jirana oo barakacayaasha dalka gudihiisa ayaan ku daryeelaa kuwa dibaddana dalkoodan ku soo celaa maxaa yeelay anigu argagixisada waa ciribtira iyo burcad badeed